سؤال مكويدية إمسا جير بعد أركتي أنت فكرة كوسو العادي فكرة دي كان عسيات في الهيد بلو ديتا فكرة دي بعضو دكتي وهذا ندي بعضو دكتي هذا ندي بعضو دكتي ديتا سنة كبعد أركتي قف بلابي فكرة ديتا العق آذو بدن كسمي بقول كي بس ديتا ندتك كم إذا أرنكاس واقول عادي واللي بإنك بدن هالمر هدي أدوني سينا كان عسي بلودي هدي أدوني سينا كان عسي مينتين جريسيد إن شاء الله هدي لها وحن بقالكم كله هو ذاك دونا تطبق فكرة ضد وكوسو هل دونتا إنهم كان عسي بلودي فكرة ugu horeysa inaad wax ku baratid samaynta dadku intooda badan aniga gaar ahaan ganacsi baan ka bilaabay waddanka Belgium waxaan idhi shaqadeedii baan joojinayaa and then lacag baan u dhursaday lacagtii waxaan siri dukaan baan ku furataa dukaankii way gaari weyday and then maxaad samaysaa baan siri qof baa fikradii ku taliya Allah msaan dadku inay moving iyo waxyaabaha u baahan yihiin and then service kana Allah msaan logistic in aad loogu baahan yahay and then gaari yar baan soo iibsaday gaarigii waxba way qaadi waayay mid kale aan soo iibsaday and then kii Allah msaan markaan soo iibsaday subaxii Allah msaan waan kici jiray inta subaxii kaceen wadada tago ayaan Allah musta'aan markan salaada subax ka soo baxeen waxoogaa yara jimicsan toos baan u bixi jiray Allah musta'aan magaaladan deganaa Tuliiro magaalada weyn u jirtay ahayd gaariga cabaar baan sii wadi jiray andan subaxii aan tagi jiray anigoo wax macmiilan uga hayaaba yaraatay jiray laakiin ayaga go'an tahay inaan Allah musta'aan wax iibiyo inaan qof alaab u qaado inaan wax u sameeyo kaarban soo daabacday intaan kaafan tagay kaafan I think 2017 2018 baa كان فن الله مستعان كارر كسر داوعده كارر كيبان الله مستعان تكانة دقينة يوم كلها تكان إن أنا على تاني قادر ربا إن روحان كلي نسميه ربا إن كان عندن وددن تجي بقول كاربن مالين كسته هذا فود جنين أن الله مستعان ودي بدن دت كون ودي بيه يقبل كارك ممكن كارك كان كله يقبل كارك عند بقول كي بس ديت عند كاميرا ويسك كي دافين أما ويسك تورين توا دركتين إذا كبا دت كان كارر كي يحيى به نيدي دي بقى ما حيزيد دي بيه ودي كنور كرين سن الله مستعان واجد حرفة ملهين أو حرفة ديت ما هين إن digital marketing iyo waxyaabahan Allah musta'aan aad ugu masii baraarugsaneen hadan hadda garanaya Allah musta'aan way ka fudaanaysaa hadda inaan business dhisoon Allah musta'aan way waxaan garanaya content-kii waxaan garanaya marketing-kii waxaan garanaya selling-kii laakiin haddii aan xilliga bilaabi lahayn waxaan iska dhaga xidhnaan lahaa oo Allah musta'aan qof caadi u maska noqon lahaa marka waxyaabahan aad u soo xasuusta waxa kamid ah inaad wax ku baratid samaynta markaad suuqa gashid suuqa brutal the real market baa la yiraahdaa suuqu waa brutal cidna uma naxariisto suuqu wuxuun buu Allah musta'aan jaangooya value-giisa iyo qiimihiisa waxa jaangooya waa dadka weeyaan marka isku wareerin fikradeeda ma shaqeynaysaa fikradeeda ma waxaynaysaa cid proof gareynayso inay fikradan shaqeynaysaa in kale waxa weeyaan waa suuqa weeyaan marka shantii cishay ugu horeysay wax salawan waaye subax kasta ka tag meeshii isku day min 8 subaxnimo okay waxaan yiri 8 subaxnimo shaqo tagi jirtay ma waxa shaqo tagi jirtay Allah musta'aan 6 subaxnimo ilaa iyo 5 galabnimo xilligii waa inaad shaqeysaa ما معميل هلا أما هل personal development دقيسين جري سيلين كان دقيسين جري أنا I was very enthusiastic الله مستعان وحيابه يوقف عناية نولش تسوس مين هذا ترى rejection كو وين النقطة الله مستعان كون نقطة مركا واحد مالي هو دقيقة جرينا بقول كاردي بقول كار rejection سيني قار بكن كلي سميني وحن حسوسته مال ما كم ذا وحن تجي تكان اللي هذا إيكيا أنتينا الله مستعان وسترن كي يمر ليست كم إعلان كنول إيكيا تكان اللي هذا سويدش إسكاليين بجتو أدوين oo si fiican u qaabeeyeen furniture-rada iyo waxyaabaha iibiyo iyo waxyaabaha guriga lagu baahan one of the most successful furniture Allah musta'aan company and then dukaankaas markaan tagay waxaan ugu tagay inaan macaamiil ka helay waayo business-kayga ma survive garoobay haddii aan iibin waayo and then kaar intaan gudihii galay meeshan waxay leedahay baa gawaari dadka u qaada and then waan xasuustaa intaan meeshii galay ayaan kaararkii dadkii siiyay dan qof baan helay qofkii baan u qaaday haddana mid labaad baan waa soo noqday mid labaad baan siiyay markii saddexaad aan soo socdo qof macaamiil soo wada umba nimankii security igu yimaadeen markaas bay igu yiraahdeen namar xagga sare lagaga baahay way ka xeel xagga sare geeyeen beel bay fadhiisiyeen askari bay igu yeedheen askarigii bay imiday oo Allah musta'aan si sharci daraad kaga shaqeynaysa meeshan tanba sameynaysa alugu bakala ogeen meesha ilaa weelooga ilaa gawaari meesha taagin laakiin to survive my business I have to go out and I have to sell that's hunter banha maalinka entrepreneur noqotid hunter bad noqonaysa dadku rejection bay ku siinayaan kan bal ku siinayaan ninkii sharcigayga iga qaaday aad baan ugu walwali jiray Allah musta'aan soo jiray bilo maalin damba ku soo noqon buu yiri marka maalin damba jirta meeshaan ku noqday anigu alaab ka soo iibsanay isla ninkii baa yimitay maxaa meesha ku keenay alaab baan ka iibsanay marka qofka entrepreneur-ki markuu yahay ee suuq gashid xalad bay leedahay challenge bay leedahay waxaan garanay wax kugu cusub and that is what's making difference waxaan oran karayo experience kan ka soo helay xagaasi it changed my whole life it changed my whole perception of the business Allah musta'aan business-yada iyo say u shaqeeyaan say u operate gareeyaan oo dhan bay bedeshay marka waxaad u baahan tahay haddii aad Allah musta'aan
business ku jirtid waxaad wax ku baranaysaa waa samaynta isku dayada fail growing, and that is what's making you Allah musta'an. waxa la yiraahdaa ilaahay ha weydiisan in Allah musta'an arrimaha lagu jilciyay weydiisay inaad adigu qof adag oo waxa dabar adeegayga iyo sabirkayga yeelanaya. marka waxa kaliya aad ku baran karaysaa waa samayntu way ka duwan tahay wax kasto dhan. isku day inaad samaysto waxaas, move fast, that's the only thing Allah musta'an differentiation kugu samayn karay. arrinka labaad ee u baahan tahay inaad ku hortagto waxa weeyaan analyze wax la yiraahdo. waxa fikradda curyaamiya ama fikradaas inay dhaqaaq weeda keentay waxa weeyaan inuu qofkii fikradiisa kala noolaado, riyaan sameynaya, maalin dhan dabaqyo dhisaya, wax buu sameynaya, and then waxaas Allah musta'an ficil ma qaaday. waxaad dhici kartaa Allah musta'an maskaxdaada hadii ku jirto inaad online business bilowdid, inaad domain raadisid, inaad Allah musta'an website-kii maskaxdaada ku soo dhaco, inaad tan samaysid, inaad kan kale isku daydid, inaad tan waxaas oo dhan waxba kama jiraan. muhiimaddu waa dhaqaaqa iyo iibka. nin baa jira North Kagan la yiraahdo oo YouTube weyn buu leeyahay Allah musta'an, boogna wuxuu leeyahay la yiraahdo $1 million weekend. marka buuga wuxuu kaga hadlayaa inaad 3 macmiil soo heshid ay weeyaan Allah musta'an waxa ugu muhiimsan weeyaan. marka muhiimaddu ha isku dayiin, ha ku fikirin Allah musta'an marka hore problemkaad xalin lahayd, waxa sameyn lahayd, waxa fikradaad sameyn lahayd iyo businesska display waxa dhan iska iloowe, dadkaad u adeegi lahayd u tag Allah musta'an, dadkii kaybi u sheeg maxaad u baahantiin, maxaad tahayna sameysaan, maxaad u baahantiin, maxaad qabanaysaan, maxay tahay, dadka weydii Allah musta'an, and natiijada ku siinaysaa. arrinka saddexaad ee isna businesskaagaas aad ku bilaabi karayso waxa weeyaan start now. waxaan arkay maalin dhaweyd daraasad gabadh baa buug bay ka qortay, dadka waaweyn ee dhakhtarada soo mari jiray ay buug ka qortay. buugaas markay ka qortay waxay ka qoomameynayeen waxay ahayd inay sameyn waayeen maaha waxaad samaysid. marar badan waxyaabahaynu samayno ama qaladaadkaynu samayno ama khasaarahaynu ku dhacno waxaasoo dhan waxbaynu ka baranaa. laakiinse haddii aanad waxyaabo isku dayin ood fikradaas dib u dhigtid aan qof kula mid intuu yimaado ficil qaado fikraddii natiijo ka keeno, Allah musta'an wax badan iska bedelsa. marka waxa ugu horeeya weeyaan xilli aad diyaar noqonayso ma jirto. ibn aadamku ma jirto haddii aad sugayso xilli aad firaaq noqonaysid, ma jirayso xilli aad firaaq noqonaysid. laakiin se waxa jiraya xilliyo badan oo kala duwan baa noloshaada soo maray. xilliyadaas haddaba sidee baad uga faa'iidaysanaysaa, maxaad ka samaynaysaa? marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan hadda dhaqaaq, hadda ficil qaad. waxaan sameeyay ganacsiyo aad u badan ilaa 20 meeyo ganacsi baan sameeyay, barkood logistic hayeen, barkood agency hayeen, barkood transportation hayeen. company kasto adduunka jiray waxa jirta projectiga ka filgaroobaya, and then they say walk away. laakiin isku daygooga ama iqtiraacooga kama joojinayo inay wax isku dayaan, inay wax isku dayi waayaan, taas kama joojinayso. marka muhiimaddu waxa weeyaan inaad dhaqaaqdid oo isku daydid. waayo waxa la yiraahdaa success rate-ka iyo failure rate-ku labadan qacmood si weyn haan bay ay tagaan. haddii aad failure rate-kaaga aad double garaysid, success rate-kaagu sare ayuu kacaya. markaynu ganacsi bilaabayno inta badan dib u dhig bari baan samayn doonaa, maalin baan samayn doonaa, andan wixii week baa kasoo wareegi doona, andan bil baa kasoo wareegi doonta, andan haddana waqti kale kasoo wareegi doona, haddana adigoo wixii aan natiijo ka helin ayay kuu gaari doontaa. marka waxa ugu horeysa u baahan tahay waxa weeyaan move fast, start now, hadda bilow. waayo qof xilli aad adduunka ka baxaysid ma garan karaysid. just start, hadda bilow. tan natiijada ku siinaysaa waa taas weeyaan. tan natiijada waayo markaad hadda bilowdid ee ficil qaadid, ficilkaas wuxuu ku siinaya Allah musta'an. dadka badan waxa jirta ila soo xiriiro igu yiraahdo waxaan rabaa inaan ganacsi bilaabo, waxaan hayaa fikrado ganacsi baan hayaa, fikrado is useless, fikrad micna ma tarto, fikradu ficil loo rogo unba Allah musta'an natiijo keenta. haddii fikradaad maskaxdaada ku haysay Allah musta'an ay jirto oo fikradii aad meelaha kale ka aragtid, cidda samaysay ee ficilka qaata ayun bas kale ilaahaydankii 100 jeer bay kugu dhalato. dadka qaarkood baa ila soo xiriiray yiraahdo fikrad baan ku haynaa, fikradaas Allah musta'an wax rabnaa inaan ka iibino ama lacag ka siino. fikrad is useless. qof kasta ayba fikrad buu hayaa, qof kasta ayba waxba maskaxdiisa ku jira, qof kasta ayba waxba maskaxdiisa ku soo noqonaya. laakiin muhiimaddu waxa weeyaan miyaad ficil u rogtay, miyaad natiijo u rogtay. markaan dadka sheekaysano, dad badan sheekaysano, dhalinyaro badan oo entrepreneurs arkaa oo yiraahdo fikradaas baan soo sameeyay, waxaan ba sameeyay, waxaan eegaa product progress-ka, product-kan imso qofad ka iibis, maxaad ka samaysay, xagee buu soo maray, hadda stage-keed ku jirtaa. marka waxaan weydiiyaa marxaladeed ku jirtaa. haddii marka ganacsigaagu uunan sali soo sameyn, haddii aanad waxba soo sameyn, challenge baa kuu noqonaysa. marka inta badan sababtan arrinkan aad kugu dul istaaga waxa weeyaan dadka intooda badan waxa curyaamiya waxa weeyaan fikradda maskaxda isaga haystaan. aan fikrad maskaxda lagu hayaayo is useless, wax allaali waxay taraysaa bayraatay ma jirto. haddii aanad take risk, haddaanad move fast, speed haddaanad ku dhaqaaqin, cid kala dhaqaaqi doonto oo fikradda qaadan doonta. maalin dhaweyd Hargeysan joogay, qof dhalinyaro ay weydiinaya Allah musta'an real estate-ka sidee baan adigaan u gali kareynaa ama Airbnb saas oo kale aan samayn kareynaa. waxaan weydiiyay dadkii seminaarka qaadanay meesha joogay mise qof bay ay fikradaasi ku jirtaa, dan ilaa iyo 10 qof baa gacanta saroota. marka fikradda adiga kugu soo dhacday kaliya maskaxdaada kuma jirtee
dad kale ay maskaxdeeda ku jirtaa laakiin ayaa keenaya natiijada qofka dhaqaaqa qofka ficilkeena qofka natiijo keena qofka isku daya ee waxa uu haysta iyo meesha uu taagan yahay ka dhaqaaqa baa natiijo keenay marka arrinka ugu horeysa maskaxda ay tahay inaad ku programsid start now move fast taas baa natiijo ku siinaysa waayo haddaad maanta isku daydid ama natiijo haysa wax igu shaqeeyay ama uu shaqeyn waayo natiijadaas baad helaysaa arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad face garaysid cabsidaada Allah musta'an rejection inay dadku ku diidaan I love inay dadku diidaan maya igu dhahdaan because that is what's make for you different haddii dadku ay ku dhahdaan in badan dadka wax ma weydiisano oo sida dadka wax loo weydiisto ma garanayno laakiin haddii aan dadka weydiisano oo kooran service-ka miyaan ku qabtaa product-ka miyaan ku sameeyaa alaabtayda niga iibso waxayga niga iibso haddana dadka weydiisan sal haddaad samaysid upside-ku Allah musta'an aad buu sareeyaa laakiin haddaad sal samayn weydo downside-ku Allah musta'an aad buu badan marka waxaad u baahan tahay inaad Allah musta'an baratid sida dadka wax loo weydiisto inaad baratid wax loo iibiyo inaad baratid rejection-kaaga inaad face iskarisid book baa jirta la yiraahdo the rejection proof nin Chinese oo Allah musta'an Mareykanka ku nool ayaa buuga sameeyay wuxuu sameeyay 100 cisho oo isku xigta ayuu rejection proof I think waad arki karaysan channel baa jirta uu leeyahay oo la yiraahdo the rejection proof and then muxuu maalin kasta sameyn jiray aniga laftigayga waan isku dayay maalin dhaweyd waxaan weydiistay intaan xagan ka baxay guriga ka baxay ayaa buugaas markaan Allah musta'an akhriyay markaan ninka fiidiyogiisa arkay ayaan baxay dan cafeteria u tagay waxaan ku weydiistay inay discount sameeyaan Jaffa House waa cafeteria waxaan qiimiyaygu way go'an yahay waxaan ku yiri miyaad maanta discount sameyn karaysaa and then ninkii discount buu sameeyay and then boqolkiiba wuxuu iga daayay 80 Kenya shilling wax saas uu iga daayay adoo wax 50 senti 60 senti meelahaas gaaraysa ayuu iga daayay marka waan isku dayay waxaan bushkareynay qofkaan ahay marka dadka intooda badan waxay ka cabsadaan maxay dadku iga oran doonaan maxay dadku iga sameyn doonaan marka waxaad u baahan tahay rejection proof in lagu diido inaad dadka wax weydiisatid cabsida inaad wax weydiisatid dadku waa waxa kaliya tay hor istaagi karaysa haddii aanad daily isugu dayin inaad dadka wax weydiisatid waxa bay raatay ku istaajin karay ma jirto haddii kalena weligaa cabsiba isaga jiri doontaa ugu midna laba generation gudahood waad dhiman doontaa waana lagu ilaawi doonaa marka cabsidu waa wax reality u muuqda laakiin maaha wax jira maaha cabsidaada wajah taas baa ku saalisay inaad business bilowdid taas baa ku saalid doonta inaad Allah musta'an noloshaada aad meel wax koola gaadhid arrinka kale isna ku xiga ee ku sahli kara inaad business bilowdid ama business maintain garaysid waxa weeyaan inaad unfair advantage ka garaadisid inaad waxaad leverage garaysid book baa jira la yiraahdo the unfair advantage samarigiisa Allah musta'an soo sameeyay buugaas laba nin Ciraaqi nin waxa qoray Pakistaniya oo wadanka Ingiriiska ku nool Hassan Kuban iyo Ashali baa la yiraahdaa book amazing one of my favorite books all the time marka entrepreneurship ka noqoto waxay ku leeyihiin dad badan oo hasal gareynaya jirta maanta hasal la jirta aanan garanin unfair advantage ku waxaya marka waxa jirta unfair advantage marka acronym la yiraahdo waxay sameeyeen miles la yiraahdo ama bixinayo magac dareen miles amta ugu horeysa waxay taagan tahay money inaad lacag haysatid waa safety labada dhinac lahayd weeyaan ama labada dhinac wax ka goynaysa haddii aad lacag haysatid lacagtaas waxay kuu saamixi karaysaa inaad business dhisidoo maintain garaysid oo Allah musta'an aad natiijo ka keentid haddana lacag haysanna waxay ku siinaysaa Allah musta'an inaad business dhistid labadaba fursad bay ku noqon karaysaa laakiin se adu waxa weeyaan waa mindset-kaaga ku eegaysid waxyaabahan inta badan arko waxa weeyaan in dhalinyaradu ku arko ganacsi baan rabaa inaan bilaabo laakiin maxaan hayaa waxaan u baahanahay faraqabsiin waxaan u baahanahay wax la sameeyo waxaan u baahanahay waxaan sameeyo waxaan u baahan nobody cares waxa soo haddii aanad lacag haysan iyada laftigeega fursada because you have nothing to lose haddii aad mahadda bilaabaysid ma haysatid waxaad lose garaynaysid wax kasta ood bilowdaay waxaad geengarinaysid plus buu ku yahay anu hadda maanta wax bilaabayo I have a lot to lose waxyaabo badan oo lose garaynayaan ayaan leeyahay laakiinse inaanad waxba aanad hayn waa fursad weeyaan waayo wax kastoo samaysid waa waxaad geengarinaysid markaa ka fikirin lacag xagee baan ka raadiyay ka fikir sidaan lacag la'aan wax ugu bilaaba haddaad lacag haysatidna fursad bay ku tahay raadi Allah musta'an wadaad uga faa'iideysid ayadu waxay taagan tahay intelligence-kaagu sidee buu yahay Allah musta'an dadku way kala intelligence badan yihiin ilaahay aqliga dadku waa kala duwan marka intelligence-kaagu siduu yahay waa fursad bay ku siin karaysaa waa fikrado profitable aad leeyahay kartaa laakiin intelligence laftigiisa haddii aanad isticmaalin imsaad aragteen dad cabqariyiina fikradahay hayaan aqoontay hayaan kartiday hayaan nobody cares waxaas Allah musta'an iyada laftigeega marka qaarkood kugu noqonaysa challenge marka haddii ay aqli badnidaadu ku tahay wax ku haysa mararka qaarkood waxa u baahan tahay in aqli badnidaada challenge garaysid waayo someone who is dumber than you waxaad mararka qaarkood arkaysaa someone is dumber than you ba Allah musta'an
ayaa dhaqaaqaya oo waxaad rabtay aad samaynaya because allah mustacaan kaagama duwana inuu kaa fiican yahay kaagama duwane wuxuu kaaga duwan yahay taas inuu dhaqaaqay ama intelligence inuu caqabad ku noqon eesh waxay u taagintaa allah mustacaan nasiibka iyo locationka inaad Europe iyo Mareykanka ku nooshahay waa fursad inaad allah mustacaan Africa ku nooshahay waa fursad adigu sida weeyga sidii maskaxdaada sida weeyga sidii ku xiran tahay kam imsa dhalinyaro iyagoo wadankii jooga business iyo dhisaya nolol fiican dhisaya wax badan sameynaya kam imsa iyagoo Europe jooga allah mustacaan wax badan sameynaya iyagoo Mareykan jooga wax badan sameynaya marka kuma xidhna locationka ama meesha ku nooshahay iyada laftigeedu fursad bay ku noqon kartaa marka dhalinyarada wadankii joogta ay dhaahdo commentiyada ku arkaa location is matter inaanad ku nooleyn laftigeedu fursad bay ku tahay waayo dadkan wad luqad fahmaysaa wad aqoon fahmaysaa fursadaha jira aduu raadi aqoontaada in la soo baxdo aduu fursadaha samaysatid iyo nasiibka adigu isku day waxay u taagan tahay waa education aqoontaad leedahay inaad qof wax soo bartay secondary tahay jaamacad soo baratay oo iyadna fursad bay ku noqon kartaa iyada laftigeeduna allah musta'an waxay ku noqon karaysaa challenge maalin dhaweyd baan waxaan arkay fanaanka la yiraahdo 50 Cent role model inoo hadda laakiin waa dadka caanka ah wax ka baran karayno wuxuu yiri anigu Harvard ma haysto degree kama haysto laakiin dadka ii shaqeeya ayaa Harvard ka soo qaatay buu ayuu muhiimadu maaha mararka qaar kood inaad jaamacad ka soo qaatid inaad aqoon leedahay inaad academic tahay inuu iyagoogago jaamici baan ahay waxyaabahaas meelaha la fadhiisatid mararka qaar kood nobody cares waxa soo baratay the market is brutal suuqu wuxuu kuleeyahay maxaad haysaa keen waxaad haysid keen marka shahaada soo qaatay taa laftigeedu marmarka qaar kood ma shaqeynayso waxa shaqeynaya waxa weeyaan suuqu wuxuu rabaa shaqeynaya marka inaad aqoon leedahay inuu fursad bay ku noqon kartaa inaan lahayn fursad bay ku noqon kartaa esta ugu dambaysa status inaad status leedahay kaalinta bulshada kaga jirta ma hadda lagu garanayo anoo kale hadda allah musta'an dad baa igu xiran waa unfair advantage waxba la faraj kareynaya adiga inaan dad kugu xidhin laftigeega iyada laftigeega waa advantage ta ugu dambaysa waa mindsetkaaga ayay ku xiran tahay marka inaad raadisid minus buugaas haddana soo daawo waa buug cajiib weeyaan arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad resourceful noqotid lacagtu meel kastay taalaa lacagtu way iska taaltaalaa laakiinse waxay u baahan tahay ciddii qaadan lahayd ciddii la soo bixi lahayd xirfadiyaad ku qaadan lahayd lacagtu waa sida qumbahoo kale haddii aad maanta qumba haysatid qumbahaas aad si dhulka ku jiid allah musta'an wax ka dilaacaya biyo ka daadanaya waayo waxaad rabtaa waa biyaha ku dhex jira waad garanaysaa waxaad rabtid laakiin resource-kii baad u baahan tahay aad ku waxaysan lahayd resource-kaas muxuu noqon karayaa aqoon muxuu noqon karayaa xirfad muxuu noqon karayaa tools muxuu noqon karayaa waxyaabo kale oo marka waxaad u baahan tahay inaad xirfadahayga samaysatid waxaad ku soo biiri karaysaa faaca cusub university waxaad baran karaysaa xirfadaha high value mid kamid ah intan taas baa kaa dhigi karaysa inaad natiijooyin wax ku oolaad heshid marka si aad resource ku talaa waxaad garamaysaa waa wada lacag bildinada garamaysaa waa millions of dollars ninba wuxuu yiraahdaa hadii lacagta adduunka taalo dhan dadka loo qaybiyo la sanad gudaheed waxay ku noqon doontaa dadkii qacmaha ku hayn jiray awal waayo dadkaas maxay ugu noqonaysaa qacmahooga because they become resourceful qofkii isaga resourceful noqday tools buu samaystay aqoon buu samaystay xirfado samaystay and then that is what's making difference Allah subhanahu difference ka samaynaysa taas dadka intooda badan way yaabayeen because they are not adding value dadku noloshooda qiimo kuma darayaan laakiin waa inaad resourceful noqotaa si aad resourceful u noqotidna waa inaad xirfado barataa xirfadaha high value ga Allah subhanahu inaad barato weeyaan taasina waxay ku siin kartaa inaad natiijo wax ku leeshid arrinka ugu dambeeya guushu waa sidii buffetka oo kale ama buffetka oo kale cunto markaad cunaysid buffetka saf baa la galaa aad hotel tagtid waa inaad marka ugu horeysa si aad allah musta'an cuntada aad u heshid cuntada fiican ee deliciouska iyo hilibka iyo digaaga leh wax kasta leh si aad u heshid waa inaad leenka gashaa waa inaad marka hore soo gashaa horta ganacsi waa inaad wax bilowdaa hadda marka taa bilowdid waa inaad waxaad joogtaa sanawaad bay qaadanaysaa that's not easy waxaan rajeynayaa inuu muuqaalkan wax niga baxeen dhammaantiin waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhammaantiin waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhammaantiin waxaan u baahanahay qof inagu taageera waxyaabaha aynu rabno haddii aanad qofka helin adigu qof u noqo haddii aanad qofka helin adigu naftaada u noqo haddii aanad daawan muuqaalka 7 buug ee ugu saameynta badan leh markay noqoto ganacsiga muuqaalkaas soo daawo guul baan ku rajeynayaa waa inooyo muuqaalka xiga